shirkani jaraa'id ay isugu yimaadeen qayb ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay kaga hadlayeen hadalhaynta golaha wasiirada Hirshabeelle iyo isku shaandhaynta lagu wado inuu madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu ku sameeyo golihiisa wasiirada. Xildhibaanada ayaa carabka mariyay in haatan ay taagneen xilli isku shaandhayn la sameeyo wasiirada xilka hayana aynan qaadan wax xuquuq ah muddada ay xilka hayeen. Xildhibaan Ibraahim Muuse Mahad oo ka mid ah xildhibaanada ka hadlay shirkani jaraa'id ayaa sheegay in isku shaandhaynta golaha wasiirada sababaha uu madaxweynaha xilligan ugu soo beegay ay tahay gabashada qodobo dastuuri ah oo ay kulmadii isla xisaabtanka ee baarlamaanka Hirshabeelle ay ku soo horiyeen golihiisa wasiirada. wasiir 8 bilood iska wax u qabsi ku soo shaqeynayay dastuuri ah qodobka 13 wuxuu dhigaa in ninka la shaqaaliyay ee la magacaabay shaqeeyo in la adoonsan karin xuquuq u leeyahay marka xuquuqdii uu lahaa hadii la yiraahdo isbedel ayaa ku yimid taasi waa foolxum ku timid burburin iyo heshiiskii oo laga baxay hadii nin wasiir ah 8 bilood uu soo shaqeynay iska wax u qabsi ku soo shaqeynay bax la yiraahdo muxuu ku baxay intuu si tagaa oo yowsu u tagaa oo aab ilmihiisa deemakii galay aaw madaxweynaha Maxamed Cabdi Waare waxaan ugu digaynaa in hadii uu daalay 6 bilood uu sheegtay oo isdhaliilay oo inuu wax qaba karin uu ogaaday dawladda waa iscazilaha wiir baarlamaanka hor imaanahe baarlamaanka hor yimaado. Xildhibaan Cali Cusmaan Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada shirkan jaraa'id ka soo qayb galay ayaa ka hadlay qodobada dastuuriga ah ee madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu hareer maray. Waxa uu sheegay in cutubka 51 farqadiisa 3 ee dastuurka Hirshabeelle uu sheegayo in madaxweynaha maamulka uu shirgudoominayo golaha xukuumaddiisa misana aynan jirin hal kulan ee golaha wasiirada Hirshabeelle madaxweynahana uu shirgudoomiyay. madaxweyne waxaanu ku leenahay ballantii aad shacabka u qaadi waa ku fayl garowday ceebna ma aha inaad xilkaasu gudo weyso cutubka 51 farqadiisa 3 waxay leedahay madaxweynaha wuxuu shir gudoominayaa golaha xukuumadda oo ugu horeeyo madaxweynaha golaha wasiirada 8 bilood hal maalin maadan shir gudoomin golaha wasiirada waa qodob dastuuri ah ma kala taqaanid kuwii aad magacawday oo shalay xildhibaanada ay kaaga qanceen in wasiirra tira yar aad keenid doonto balse aysan suuro gelin 7 wasiir aad keentay haddana aad wasiir aad waajibkiisii u daysay aysan jirin dhammaan sida aan ka war hayno wasiiradii baarlamaanka hor yimidna ay qireen wasaarad awoodeeda ku shaqeyn kartana inaysan jirin wasaarad kasta aad u samaysatay wax la yiraahdo focal point. dhanka kale xildhibaan Cali Cusmaan Ibraahim Cali Ciiley oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle kana hadlaya arrimaha amniga ee deegaanada Hirshabeelle ayaa tilmaamay in madaxweynaha muddada uu xilka hayay uusan dhisan ciidan u madax banaan maamulkan Hirshabeelle. sidoo kale isla qodobka 51 farqadiisa 7 waxay leedahay madaxweynuhu waa taliyaha ciidamada amniga dowladda goboleedka Hirshabeelle aaway ciidamadii aad u talinaysa aaway sanad ayaad joogtaa hal askari maadan samayn. si kastaba hadalhaynta ugu weyn ee dhanka siyaasadda ee deegaanada Hirshabeelle ayaa ah isku shaandhaynta lagu wado in madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu dhawaan uu ku sameeyo golihiisa wasiirada. Cabdifataax Axmed Maclow, Cabdifataax Zaki, muuqaal baahiyaha bulsho bartamaha magaalada Jowhar.